Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan oo kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka ee aan mar walba halkan kaga soo gudbino. Haddii Ilaahay idmo mowduucan waxaan uga hadli doonaa kala duwanaanta dhiigga ee dhiciska keenta. Wax lagu magacaabo rhesus isoimmunization. Kala duwanaanta dhiigga ee dhiciska keenta waa isqaadasho la'aan ka dhaxaysa nooca dhiigga ee hooyada iyo uurku-jiraha oo sababta in difaaca jirka hooyada uu u aqoonsado ilmaha waxyaabo khatar ku ah jirkeeda. isla markaana uu weerar ku qaado si uu meesha uga saaro oo uga hortago. Kala duwanaanta dhiigga ee ilmaha iyo hooyada waxay ka timaadaa marka nooca dhiigga hooyada uu negative yahay minus halka dhiigga aabahana uu positive yahay plus. Marka ilmaha dhalan doona waxa ay qaadan doonaan nooca dhiigga aabaha taas oo keenta in hooyada jirkeedu uu u qaato khatar caafimaad darro oo soo wajahday sidaana uu ku dilo uurku-jiraha. Qoyska noocan ah ilmaha ugu horeeya waxa ay ku dhashaan caafimaad qab laakiin kuwa ku xiga waa ay dhicisaa hooyadu ama uurka ayay ku meydaan. Waxaa sababa in ilmaha ugu horeeya ay dhashaan iyagoo caafimaad qaba kuwa ku xigana ay dhintaan ayaa ah in hooyada uurka leh difaaceedu uu sawir ama dareen isdifaacineed oo ka qaatay jaridii xuduntii ilmihii hore ee sida caadiga ah u dhashay markaana wixii ka dambeeya uu u diyaarsan yahay inuu ka hortago ilmo leh dhiigga kuwii hore oo kale isla markaana uu soo dhiciyo oo ka soo saaro minka. Sababaha soo dedejiya dhiciska noocan ah kala duwanaanta nooca dhiigga hooyada iyo aabaha, dhalmada ama xilliga foosha, iibida goosata ee booskeeda ka wareegta, dhiciska, uurka meel qaldan ka dhaca, wax lagu magacaabo ectopic pregnancy oo aan minka ka dhicin, dhiigga xilliga uurka ka yimaada hooyada. Dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhasha kala duwanaanta dhiigga. Dhicis mar waliba soo noqnoqda, dhiig la'aan uurku-jiraha, ilmaha oo uurka ku dhinta, uurku-jiraha oo biyo ku abuurmaan maskaxdiisa iyo uurku-jirtiisa. Xalka qoyska ay haysato kala duwanaanta dhiigga ee dhiciska sababta. Qoyska qaba ciladan marka ugu horeysa ee laga shakiyo waxaa loo diraa baaris lagu sameeyo nooca dhiigga aabaha iyo hooyada iyo haddii ay jiraan ilmo ay dhaleen. Marka haddii la ogaado in nooca dhiiggoodu uu kala duwan yahay, waxaa la siiyaa talo ku habboon iyo ka hortag difaaca jirka hooyada ee uurka soo ridaya. Daweynta kala duwanaanta nooca dhiigga dhiciska sababta ee qoyska. Marka ugu horeysa ee la xaqiijiyo ciladan, waxaa la duraa hooyada cirbad lagu magacaabo anti-D. Isbuuca 28aad ee uurka iyo 72 saac ee ugu horeysa marka ay dhasho hooyada waxaa la duraa 250 international unit anti-D oo ah cirbad difaaca jirka ka hortagta taas oo difaaca hooyada ka joojisa inuu u aqoonsado uurku-jirka mid jirkeeda khatar ku ah falgalna uu la sameeyo si uu isaga difaaco. Hooyada ciladan laga helo ee uurna leh haddii dhiig uu ka yimaado wixii ka dambeeya isbuuca 12aad ee uurkeeda mar waliba waxaa la duraa 250 international unit anti-D cirbad ah si looga hortago difaaceeda weerarka ku ah uurku-jiraha oo ka soo saari kara minka ama ku dili kara minka gudihiisa. Qormadan iyo kuwa kale oo la xiriira caafimaad qabka qoyska iyo ciladaha soo wajaha hooyada uurka leh iyo xanaanada ay u baahan tahay iyo marka ay dhasho kadib 6 bil ee ugu horeysa nafaqada ay u baahan tahay carruurta waxaad ka daalacan kartaa buuggan la magac baxay qoys deeqe oo qoray Dr. Shariif Xidig. Waa mahadsantihiin.